Bismillahi Rahmaani Rahiim. Kusoo dhawaada mar labaad iyo koorskeeni English Vocabulary in Use. Today waxaan rabnaa in aan bilowno Module 3 cutubka saddexaad oo ka koobnaan doona ilaa iyo 4 chapter. Waxaan ugu macdari doonaa cutubkan School and Workplace. Iskuulka iyo meelaha laga shaqeeya iyo waxyaabaha waxbarashada ku saabsan iyo shaqooyinka ayaan baran doonaa. Sida kacal chapterskan chapterka ugu horreeya waxaan ku baran doonaa jobs shaqooyinka. Chapter 15 waxaan ku arki doonaa iskuulka iyo jaamacadaha iyo agabka waxbarashada. Sidoo kale 16 waxaan kaloo ku arki doonaa communications waxyaabaha dadka ku wada xiriiraan sida mobilada, kombiyuutarada, emailada iyo waxyaaba lamid ah kale. Ugu dambeyn waxaan wax ka baran doonaa vocabulary la xiriira your phone. Bal aan hore u galno chapterkan ugu horeeya oo modulekan chapter 14 waxaan ugu macdari doonaa jobs shaqooyin. Bal marka hore waxaan ku bilaabi doonaa shaqooyin oo very basic ah oo qof kasta inuu yaqaan laga yaabo. Bal marka hore aan isla fiirino meeshaan kadibna aan ka daba dhahno haddii ay macquul tahay. A. What's his or her job? Okay. Doctor, Doctor, teacher, teacher, nurse, nurse, mechanic, mechanic, secretary, secretary, shop assistant, shop assistant, hairdresser, hairdresser, engineer, engineer, farmer, farmer. But what's his job? Shaqadiisu maxay tahay? Ama what's her job? Ayada shaqadeedu maxay tahay? Doctor, dhakhtar waaye. Labadaba loo isticmaali karaa. Wiil ama gabar. Teacher, sidoo kale macallin ama macallimad. Nurse, kalkaaliye ama kalkaaliso. Mechanic, qofka mechanic ka shaqeeya biraha iyo waxaas kale baabuurta iyo warshadaha iyo. Secretary, waa qof secretary ah oo ka hoos shaqeyso madaxda iyo waxyaabahaas kale. Shop assistant, qofka dukaanka gada ama caawiyo waxyaabahaas kale. Hairdresser, qofka ka shaqeeya timaha inuu qurxiyo, inuu timaha hagaajiyo, timaha jaro iyo waxyaabahaas kale. Engineer, sida meesha waxaa naga muuqda hadda qof engineer ah oo like surveying camal sameynayo oo dhulka cabirayo kale. Farmer, waa qof beeraley ah. Okay, next waxaan fiirin doonaa section B, jobs in the town. Shaqooyinka ka jiro meelaha townska, magaalooyinka ama caasimadda oo kale. Bal hama ila dhegeysta meeshaas. B. Jobs in the town. Police officer, Police officer, traffic warden, traffic warden, librarian, librarian, bank clerk, bank clerk. Police officer waa sarkaal police ah. Traffic warden waa nin shaqadiisu ay tahay inuu gawaarida meelaha parkingka qaldan galay inuu ganaaxa bis loogu talagalay. Librarian, qofkan shaqadiisu waxaa waaye library-ga qofka ka shaqeeya ayaa waxaa loo yaqaanaa librarian. Dadka buugta akhrisanaya markii qof kasta buug akhristo miiska inay u tagtaa laga yaabaa. Kadibna qofka shaqadiisa waxay tahay inuu buug kasta qabto uuna geliyo booskiisa saxda ah. Librarian. Bank clerk waa qofka bangi ka shaqeeya waxa qoro dadka wax la qorqoro la habeeyo lacagaha transactionska la fududeeyo. Bank clerk ayaa loo yaqaanaa. Next waxaan fiirin doonaa expressions iyadoo la isticmaalayo ereyadan. Bal marka hore sheekadan ila dhegeysta. C. Expressions. What's your job? I'm a waiter. I work in a restaurant. What do you do? I'm a taxi driver. Is it an interesting job? Yes, I like it. Where do you work? I work in an office. Sometimes it's boring. My dad works in a factory which makes car parts. I worked in a shop at the weekends when I was a student. I want to work in a beauty salon as a hairdresser. I'd like to work in a children's hospital. I'm a writer. I work at or from home.
alright bal sheekadan yarista aan fiirina bal iyadoo nuxurkan uu yahay ereyada boldiga ah farta burburan inaan fahno markaas. What's your job? maxaa qabataa shaqadaada maxay tahay? I am a waiter ayuu dhahay ninkan. aniga waiter ayaan u dhahay maqaayadan ka shaqeeyaa Cavalieri. I work in a restaurant. waxaan ka shaqeeyaa maqaayad. What do you do? adigana maxaa qabataa ayaa lagu dhahay gabadhan. mas wiil waaye. kadib wuxuu leeyahay I am a taxi driver. aniga darawal taxi ayaan ahay. Is it an interesting job? ayaa la weydiiyey. shaqo xiise leh miya? Is it an interesting job? shaqo xiise leh miya? Yes, I like it ayuu dhahay qofkaas. Yes, waan ka helay shaqo xiise leh waaye. Where do you work? adigana maxaa intee ka shaqeysaa? Sofia waxay leedahay I work in an office. aniga waxaan ka shaqeeyaa xafiis. Sometimes it's boring. marmarka qaar xiise ma lahan, waa caajis, boring waaye. Okay. My dad works in a factory. aabbahay wuxuu ka shaqeeyaa in a factory. warshad ayuu ka shaqeeyaa. Which makes car parts. warshadaas oo sameyso baabuurta qalabyadeeda. maybe wuxuu sameysaa taayirada, maybe boolasha, muraayadaha, waxyaabahaas oo kale. adigun baabuurta qalabka loo isticmaalo ayay sameysaa warshadaas factory. I worked in a shop at the weekend. waxaan ka shaqeyn jiray dukaan at the weekend. maalmaha fasaxa like jimca iyo khamiis oo kale, ama meelaha qaar sabti axad. when I was a student waxaan ka shaqeyn jiray dukaan. I want to work in a beauty salon. waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo beauty salon. beauty salon waa goobaha gabdhaha lagu qurxiyo ama wiilasha kale, timaha loogu dabo, cilaanka loogu soo saaro, make-upka loogu soo mariyo. As a hairdresser meesha aan ka shaqeyn jiray waxaana ka qaban jiray hairdresser, timaha ayaa hagaaji jiray. sometimes waa ka shaqeyn kartaa beauty salon shaqooyinkan adigoo qabanaya. maybe waxaa ka noqon kartaa manager, maybe waxaa ka noqon kartaa accountant ka noqon kartaa. marka hadda qofkan wuxuu noo sheegayaa inuu ka shaqeeyo meesha timaha lagu qurxiyo, shaqadu ka qabtan inay tahay tima qurxin. I want to work in a beauty salon. inaan ka shaqeeyo ayaan jeclahay meeshaas as a hairdresser. I would like to work in a children's hospital. waxaan jeclahay inaan ka shaqeeyo isbitaal oo caruurta lagu daaweeyo. I am a writer. aniga waxaan ahay qoraa. I work at home. guriga ayaan ka shaqeeyaa. waxaa kaloo dhihi kartaa I work from home. labadaba dhihi kartaa. guriga ayaan ka shaqeeyaa maadaama qofkan writer uu yahay. no need in ma u baahno inuu xafiis u shaqo taga maalin kasto. marka gurigiisa isu fadhiistaa uu qoraa markaa. That's it. chapterkaas meesha ay ku egyahay. si aa u xaqiijisid chapterkaas inaad fahantay oo ku saabsan shaqooyinka, fadlan ka shaqeey exercise-ka ku xigo. inta ka horeysan insha allah nabadgelyo.